DNA-giisa wuxuu ka bilaabay horta inuu 3% kaliya yahay Soomaali waxa guul ahna inuu toos u shaabadiyay 3% meeshan loo yaqaano Goa oo Portugiiska hadda berigii ee Soomaaliya markay weerari rabeen dariiqa u soo mareen xaggana ka soo kaxeeyeen dad fara badan ayuu 3% dadka ka mid yahay 5% waxa weeye Western Himalayas Hindu Kush 5% another 5% waxa weeye the Deccan Manar oo Indiyeeda laftigeeda ah 3% waxa weeye Bengal yani Bengalnimada inta ku jirta dhiigiisa iyo Soomaalinimadiisa waa iswaaqafaan waa isla siman yihiin 2% waxa weeye South West India yani ninkan dhiigiisa Soomaalinimada waa 3% xaggu Hindiya ama Hindi uu yahay 23% dhiigiisana 29% waxa ku jira hadda Ethiopian iyo Eritrean oo markay ku leeyihiin hadda cadadku adigu oran baa tahay see ku dhici kartaa haddaba inuu 3% kaliya Soomaali noqdo 23% Hindi 29 Eritrean waxa laga